gudoomiyaha ku-xigeenada gobolka Gaardafuu iyo mas'uuliyiin kale ayaa safar ay ku kala bixinayeen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Gaardafuu ku soo maray magaalooyinka Taageer, degmada Baargaal, deegaan beereedka Xoogaad, Barxa iyo deegaanka Ceelquud. waxaana ay mas'uuliyiintu ku gorgalayeen xaaladaha ka jira deegaanadii ay marayeen iyagoona shacabka wajiyadooda laga dareemiyay farxad iyo dawlad jacayl. waxayna markasta mas'uuliyiinta dawladda la wadaagayeen xaaladaha dhabta ah ee ka jira deegaanadooda. arrimaha bulshada magaalada Heltibos MCH male deegaankan ballaaran ilaa tuulooyinkiisa Fogoolo ilaa Ogooyinka ilaa Xabaalaha Ambiyaad ilaa 700 qoys waa ku noosha wax Heltibos uma dhisna xagga waxbarashada dugsiga hoose kaliya baa halkan waxa malay ardayda uniformkiisa waa aragteen dhexe markay gaadho Baargaal inta ugu sokaysa geena Baargaal bareeda xitaa dadkii baableeshka barnaamijka jooga xasaas badan iyo dad badan waa guuray beeraha waxa malanayaa shalay waa aragteen horta alxamdulillah rabbil caalamiin nimca ilaahay waan siiyo biyo iyo beero laakiin beeraha dhiirigelin hadeer marbay jeefa hay'ad la yiraahdo wax nagala qaban jiray oo kinaalo iyo noo sameysay qaybo aan kinaalo lahayn iyo barkado ay noo sameysay wixii xataa waa burbureen iyadoo ruuxeeda beerihii wax dhiirigelin dadkii hadday haystaanin sanadka hore qolaan noo timi wax yiraahdeen qudaarta iyo waxaan kaasa hal mar bay yimaadeen dabadana uma soo noqon abuur wasiir waa noo keenay laakiin inta yiraahdeen waa soo noqonayna oo sida u baxo iyo in ka soo cayayaan iyo baa markii dambe dadka helay cayayaankii wax laga buufiyo oo dadkii ma haystaan beerihii waxa hadeer loo horumarin waayay inta awooyaashiya saddex qarni bay jiraa beertaas sida la yiraahdo waa intii odayaashii hore baneeyeen waan idin soo dhaweynaynaa dalkiina ma u timaadeen iyo dadkiina waan idin suweynay oo warkiina waa la socon baryahan waxaan idin rajaynaynaa waa khayr wadankii aad timaadeen waa wadan khayr dhibaato ma leh buuq ma leh isqabsi ma leh qabyaalad ma leh tuulada Ceelquud baa la yiraahdaa waa international oo waxa u dhaxaysaa gobolka Gaardafuu bartamihiisa weeye meelaha la isugu yimaado weeye waa meel ummad badan degan tahay ma leh kala sooc ma leh bismillaah ma isqabsi ma leh buuq ma leh qarax ma leh xabada ma leh wax dhibaato ma leh ciidanka iyo odayaasha iyo dhammaan waxaan u sheegaynaa in wax dhibaato laga fakara jirin insha Allah taala oo saa ku farxaada Ceelquud reer Ceelquud waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran oo aad macnaha tan iyo maantay nagu sugayseen magaalada Ceelquud annaguna safarka dheer oo aad garanaysaan oo wax way ilaa daba taag aan ka soo degaynay waxa xaaladdeena waa la soconay waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo sharafteen naguna soo dhaweyseen magaalada Ceelquud guud ahaan markaan idinka warrano safarka iyaga sida la socotaan waxa weeye anigu gudoomiye cusbaan ahaa wali xilkii lama wareegin waxaan u soconnaa caluulaan u soconnaa xilkii markaan la soo wareego ayaan reer Ceelquud hoos iyo maxaan ahdaa si toos ah iyo si dadbanba aan isu wareysan doonaa insha Allah marka xiga waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo salaan runtii diiran oo aan idin ka wado madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni runtii hadee